waxaa jira laba astaamood oo go'aamiya ayaha nolosha shaqsiga inkasta oo magaca rag laga wada yahay garaadka iyo garashada ayaa la isdheeryahay waxaa maragma doonta ah in rag badan oo naftooda mahadiyey iyaguna lagu mahadiyey eebbe kasakow ay guushoodu tahay mid ka timid dadaal hooyo iyadoo taasi jirta ayay qaarkood ka indhasaaban yihiin in ay hooyadii dhashay ay la soo martay daruuf adag una hurtay muruqeeda nafteeda maalkeeda wakhtigeeda iyo riyooyinkii mustaqbalkeeda si ay ubadkeeda u siiso nolol aaya leh in baa og waxa ay mudan yihiin oo ceebaha iyo iinta u diida haweenka Soomaaliyeed in baa og hooyada macnaheeda maamuuskeeda iyo in ay hilibkeeda siisay oo uu cunay in baa og in ay walaashu tahay mid waana la jecel oo garab taagan in baa og in 9 bilood iyo sugeeda calool lagu siday foolna laga maray inta arrinka garan iyo inta ka indhasaaban waxa lagu kala gartaa geedi socodka iyo loolanka uu shaqsigu kula jira waqtigii isguraya waxay ku sifaysan yihiin laba astaamood oo lid isku ah goorta uu si dhaba u garwaaqsada arrimaha wuxuu noqdaa shaqsigu mid mas'uulka noqdo noloshiisa iyo ficiladiisa maalinlaha ah balse ma noqdo mid dusha ka saara cid kale eedda iyo halka ay noloshiisu taagan tahay maanta wuxuu isweydiiyaa doorka uu nolosha ku yeelan wuxuu isweydiiyaa meesha uu ku bixin lahaa cimriga iyo awoodda dhallinyaronimadiisa wuxuu isweydiiyaa waxa uu ku jawaabi doono maalinta la weydiiyo meeshii uu ku bixiyey dhallinyaronimadiisii wuxuu noqdaa mid ka gaashaanta daruufaha waqtiga ee gacmaha ka xira shaqsiga qof walba oo inaga mid ah daruufaha nolosha si unbay u saamaysaa taasi macnaheeda ma ahan in uu shaqsi ka nasiib badan yahay shaqsi kale nasiibku cid kasta wuu la jiraa balse waxay ku xiran tahay shaqsiga sida uu uga faa'iideysan hayaanka nolosha qof fursadda ayuu abuuraa intaa kadibna nasiibka ayaa saacida qofna inta uu gacmaha isa saarta ayuu sugaa fursadaha ku xiran malaha mustaqbalka intaa kadibna waa dambe ayuu nasiibka ku eedeeyaa halka uu nolosha ka taagan yahay dib u dhigistu waa tuugga cimriga shaqsiga kaasoo lumiya ruuxa noloshiisa noloshu horay ayay u socotay wayna socon intii loogu talagalay taasina hawshaada ma aha adiga waxaa mudan inaad isweydiisa meesha aad ku bixin cimriga yar ee lagu siiyey iyo sida aad uga faa'iideysan fursadaha noloshu waa safar sida uu safarku dhammaad u leeyahay noloshuna waa mid dhammaad leh nolosha maantana waxaad moodaa in fikirka gebi ahaanba meesha laga saaray taasina cawaaqibta ka dhalan karta waa qoomamo adduun iyo aakhiraba go'aanada iyo doorashada aad maanta qaadato waxay noqon mid saameyn ku yeelata noloshaada abid murti Soomaaliyeed baa waa hore laga hayay hoohay arrimahaad halaysay habeen nacasnimo ku dhaafay ileen hibashiye ma deysid naftaadu in ay ishiifto haddaba waa inaad ku sifowdaa labada astaamood midkood amaana allah in waqtigu xajiib yahay maxbuuskii laba garan qiimo cud ku leeyahay sabool caydhaba garan laxaad caafimaad qaba kuryaan heetiya garan